السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديوغان dhowr qof ay weydiisay marka saas darteeda u soo duubaya wuxuu ku saabsan yahay fiidiyoogan Binance account-ka sida lacag looga baxsado oo bangigaaga caadiga ah loogu dirsado. dhowr qof ay weydiisay halkan ay toole for example home-ka markuu saan yahay dhowr qof oo waxaan arkay ku wareersan oo xataa Binance-gooda uusan sax ahayn hadaa halka menuga ku dhufatid haduu kugu furan yahay little waxaan ka bahalkaas la dhahaa Binance little haduu ku furan yahay akoonkaagu qaribmaya macnaha si sax ah uma arkaysi information ka dhan marka intaad ku dhufanaysaa mar walba little ka soo iska xiraysaa Binance little okay marka insha Allah taasna waa warbixin dheeri wallet baa taabanaysa marka halka home ka joogtid wallet baa taabanaysa wallet marka taabatid waxaad dhahaysaa withdraw lacagtan waxaan doonayaa inaan la baxo xagee kula baxaysaa marka in yar uu iswadaa marka waxir insha Allah dulqaata saa markuu soo baxo hadda for example lacag badan waxay kuma jiraan 51 waxa ku jira USD dollar soo hadaa rabtid inaad lacagtan la baxdid waa inaad soo sariftid marka hore oo lacagta aad la bixaysa aad ka soo dhigtid see ku soo sarifayna waad noqonaysaa home baad tagaysaa meeshaas more ku qoran tahay ayaa tagaysaa more marka taabatid halkaan ku soo sarifaysaa lacagta marka kor u soconaysaa ilaa aad ka aragtid meeshaas ay ku qoran tahay convert hadaa trade meeshaas hoosteeda oo convert ku qoran tahay ayaa taabanaysaa maxaa doonaysaa lacagtan hadda waa USD waxaan leeyahay maxi daamin ayada dhan ii sarif maxaan ka dhigayaa waxaan dooranayaa lacagta aan doonayo inaan la baxo horta koo weyn lacagta ka dhigtaa lacagta la bixisid maxaa waaye ma euro ma pound ba ma anigoo kale hadda pound ayaan isticmaala sababtan pound isticmaalo wadankiisaan joogaa marka poundkii baan raadinayaa okay waxaa la dhahaa GBP okay GBP okay waa taas lacagtaas aniga wadankayga aniga laga isticmaalaa GBP waa Great Britain pound okay so halka marka marayso waxaad leedahay micnaha lacagtaas iiga dhig baa leedahay okay so marka lacagtaas aad hadda maxi ku joogto convert baan leeyahay macnaha hadda ma raba inaan ka dhigo laakiin convert marka tiraahdid lacagti meeshaas USD leedahay pound ba isku bedelaysaa ii bedel oo pound iigu bedel baan leeyahay inta pound-ka ay ku noqonayso ayuu ku sheegaya laakiin converted hadda dhaho daamin lacagtii bedelmaysa laakiin aan ma raba inaan iska bedelo halkaas lacagta ka soo bedelinaysa horta kow marka lacagti soo bedelato wallet-kii ba tagaysa marka lacagta waxay ku tahay markaan pound ay ku tahay waad ka soo bixisay USD waad soo sarftay pound baad ka dhigtay intaad imaanaysaa withdraw baad leedahay lacagtan la baxaan doonaya lacagta marka halkaan ma taabanaysid crypto ma taabanaysid cash marka dadka qaarkood waxay u qorayaan flat dadka qaarkood wuxuu qorayaa wax kale laakiin adiga cryptada mar walba ma taabanaysid kala dooranaysa okay lacagtii baan dooranaya marka lacagta aad kula baxaysid waa pound okay pound baan doonayaa inaan la baxo xageed kula baxaysa okay markiiba wuxuu ku siinayaa bank details hadaan kuli ku siiyo hadda ani bangigu ii safe gareysan yahay okay waa diyaar u yahay okay so laakiin adiga waxa u baahan tahay in aad bangi register gareysato hadda for example lacagta geli buu leeyahay 30 pound baan dhahayaa for example sufficient buu dhahayaa balance GB0 sababta uu ii dhahaya maxaa weeyaan because lacagtii aan soo sarifin remember hadda lacagtii soo sarifo lacagta inta iigu jiri lahayd ya lacagta baad halkaas ku qoraysaa continue baa dhahaysaa haddaad bangigaaga horta kow haddii uu bangigu safe gareysnayn bangigu kuu soo saaraya bangiga detailskiisa aad ku qoraysaa aragti lacagtana kula baxdid marka bangiga detailskiisa ku qortid oo confirm dhahdid numberka yarta sirta gadaalad gelinaysaa halkaan oo kale markaas kuu soo saaraya bangiga kuu safe gareysan ayuu wuxuu kuu soo saaraya meeshii lacagta aad gelin lahayd lacagtii baad gelinaysaa continue baad leedahay password buu kuu soo diraya passwordkaad gelinaysaa oo Binance-ga safety-ga then automatically lacagta 10 daqiiqo bangigaaga ku jirta waan jecelahay inaad fahanteen marka waa idinkaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh